waxaan doonayay marka ugu horeysa ilaahay waxaan ka baryayaa in abaaraha jira ummaddiisa iyo islaamkaba uu ka jiriyo oo ilaahay barwaaqo inoogu bedelo abaar adag baa jirta taana ilaahay baan weydiisanayaa waxaan doonayay inaan wax ka idhaahdo saddex arrin oo ayaan dhaweyto nin aagga buuhood la joogo madooba la yiraahdaa uu wadwaday oo uu ka sheekeynayay oo telefishinka kaga hadlayay oo uu ku baanayay baan ka hadlayaa ninka oo maalinta ka dambaysa in sii kordhiya rabshada ka warankeeda oo marba konton in meel soo taaga oo kala badbedela inuu ciidamo badan haysto inuu balaayo haysto marba konton inaan direys cusub iyo mid kii hore ka duwan dadka soo dhex taaga saddex arrin oo uu sheegay saddexda arrin oo kala ahaa buuhoodle inuu qabsanayo oo ilbiriqsi ay ku tahay oo uu horreysiyey dadna ku dhimanayo midda labaad ee uu caadaystay oo iyana odhanaysa inuu Somaliland weerarayo oo iyana sheego marba meel intuu istaago oo qaadacul dariiqnimo isu taago iyo midda saddexaad oo ah inuu isimada deegaanka ka haysto ogolaansho iyo idam uu ka haysto inuu jahadu doono u socdo inuu ka haysto marka uu horeysa intaan taagelin dadka ummadda la baxday u dhalatay deegaanka buuhoodle ee gobolka buuhoodle ummadda u dhalatay marka laga hadlayo gobol ahaan marka laga hadlayo dad ahaan reer buuhoodle waa is yaqaanaa wuxuu is yaqaanaa hadduu qofku reer buuhoodle yahay Australia joogo iyo haddii uu joogo Mareykan oo bariga iyo galbeedka adduunka reer buuhoodle waa is yaqaan ninkii fidnoola ninka ummadda fidno dhexdeeda ka abuuri kara ka ay caado u tahay ka fidnada u dhashay iyo ka nabadoonka ah ama ha weynaado ama ha yaraado reer buuhoodle waa dad is yaqaan hebel marka la yiraahdo ama waa laga mashiiqsadaa oo waxa la yiraahdaa ninkaasi waa fidnoola wuxuu sheegayna waa fidno ama waa nin nabadoona ama waa nin nabadda jecel ama waa nin deegaanka wanaagiisa jecel baa la yiraahdaa reer buuhoodle reer macni waxaan uga jeedaa reer buuhoodle nin kastoo reer buuhoodle war sheegaya waa yaqaanaa ku yahay waxaan taa uga jeedaa aan taa ka leeyahay mid kale oo odhanaysa marka ugu horeysa waad ogtihiin oo social media adduunka jira isgaarsiin baa jirta qof baa hadlaya hadalka qofku hadlayo sabankan aynu ku jirro waad ogtihiin isgaarsiinta in qof walba wuxuu soo gaaray iskaga hadlayo in qof walba wuxuu isagu jecel yahay uu ku hadlayo waxaa jira erayo khilaafaadka loo isticmaalo oo la sheego had iyo goor oo ah xikmadda waxay sheegaysaa dadku wuxuu isugu jawaabaa inaynu isfahanno dadku isuguma jawaabo inuu dadku isfahmo qof baa hadlaya qofka in bulshadii uu la hadlayo fahanto uma jawaabaan waxay u jawaabaan haddii beedankeeda leeyahay in ay
waxay u dhageystaan qofka waxay u dhageystaan inay u jawaabaan laakiin uma dhageystaan inay fahmaan bal qofku wuxuu ka hadlayay in la fahmo oo qofku fahmo dadku uma jawaabo oo uma dhageystaan waxay dhageystaan sida ay ugu jawaabi lahaayeen taasoo ah mid meesha ku liidata midda labaad ee aan jeclahay inaan wax ka xuso waxa weeye Somaliland xukuumadda Somaliland shantii sanadooda ugu dambeysay fadhiday kursiga buu hodla marka hore Somaliland ta kale nabadeeda sida u jeceshahay u jeceshahay nin kasta wuxuu doonayaa waxa ku bees garay Somaliland bulshada reer buu hoodle ee Somaliland hadee bayda keeda leeyahay degan ee deegaanka degan waxa wax aan cid kala gorgortamin ah in nabadeeda ay dhowrto balkiisoo Somaliland nabadeeda ay dhowrto ba Somaliland ka go'ano oo adag oo waliba aad u adag taa oo nin waliba suu jecel yahay fidnoolo oo dhan war ka doono Somaliland cid ay kagala gorgortamaysa buu hodla nabadeeda ma jirto waxay weydaarsanayso Somaliland buu hodla inay nabad ahaataana ma jirto waa sida Somaliland ugu rajacashay uguna wanaagsan dan guud iyo mid gaarna oo taana ninkii aqli leh ee deegaanka buu hodla u dhashay uu garanaya oo waa ogyahay laakiin inta aan imika leeyahay nin walba wuxuu doono inuu ka yiraahdo waayo waxaad maqlaysaa ninka aan sheegay madoobe iyo la yiraahdo wax oranaya kadib waxa la yiraahdo waan soo weeraraya xaqiiqda ninka og iyo ninkii aan wax siyaasadaynayn ina Somaliland buu hodla nabadeeda deegaanka sidoo dadka deegaanka ay ka jeceshahay inay ka jeceshahay mooyaane in buu hodla qas ka jiro aan raalli ka ahayn waloogi waxa loo yahay fidna buu hodla dhexdeeda laga kiciyay oo lagu dagaalamay bulshada dhexdeeda iyo qabaayilka ku dagaalameen kuwii riday in Somaliland u jawaab weeday markay yiraahdeen ciidamada Somaliland la soo weerar in Somaliland wax jawaab ay ka oran weeday maadaama Somaliland nin qasay bulshada dhexdeed ayaan u soo raacay bulshada dhexdeed jawaabteedu noqotay jinin ninkii keena bixiya yani bulshada dhexdeeda ninkii fidna ka dhaliyo aday ku taab يعني أذيك أباك حسبري أبال كذا أنا أذيك عليه تاسو تذكر دجان كدتشي أو مرهراء هاي وهذا ويدين يو تذكر دجان كده حديثة ليش كدلي ويدين سؤالي لان هذي بيدك كذا ليه هاي بوخذ لنا بتقليه أو حي ويدار سنسا بتشتو طب شعب كبوخذ لنا بتقليه سوي حي ويدار سنسا بتشتو طلبات إمك تطبعاً با وحا دليلا يا ما هلكن مشاريع وهذا خير بوهد لو يسوي هذا بوهد له سيدا Somaliland oo dhan uu abaarisantahay Soomaaliya oo abaarisantahay ba abaari uga jirta wax hawl ah oo la qabtay oo abaareed oo Somaliland oo shacabka Somaliland bixiyay oo ganacsatada Somaliland bixiyay oo hadee biidankeeda leeyahay xukuumadda Somaliland bixisay oo buuhood la ka hadhay ما جرتو سيدا umada kale abaaraha wixii la karayo loogu qaybiyo loo bixiyo shacabku u bixiyo ganacsatada u bixiso xukuumadda u bixiso ba looga bixiyaa waxa kale oo jira waan ku darayaa Somaliland ficil umada dhexdeeda rishad ka abuuraya buu hodle ama fidna ka kicinaya ma geedo كمان كعدو منا تشعلا نبض أبوه خدلنا إن أي غس كدورته حكومة ده شرته Somaliland شغالين إيسا ووح عادي يرالسو حكومة ده الحوينة مصبيح عبدي أو عادي ويرالسو waxaanan kaba been sheegin qolada Puntland ee deegaanka buuhood la joogta qolada Puntland ee deegaanka buuhood la joogta sharci ku soo kordhiso buuhood lama og iyaga u dhow buuhood le
shar kuma soo kordhiyaan dadka u jooga halka noocyada kala duwan ama ciidan ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen ama kuwa taageera ha ahaadeen wax rabshada oo buuhood la bulshadeeda dhexdeeda ay ku soo kordhiyaan ma ogi waxa magaalada dhexdeeda dhinaca koonfureed jooga oo degan maamulka Itoobiya kilka shanaad waxaan wanaag ahayn iyo waxaan bulshada dhexdeeda wanaag ahayn ay ku soo kordhiyaan ma jirto wax fidna ah oo ay buuhood la u isticmaalaan ma jirto iyo qolada Puntland Somaliland waa joogtaa sidaas oo kale u joogtaa ummadda dhexdeeda oo buuhood la u joogtaa wax ay ku soo kordhiyaan ma jirto waxse xusid u baahan oo inaan wax ka idhaahdo ay tahay horta waxa dagaalka la yiraahdo waxa curiya oo hadee waxa had iyo goor curiya oo uu macaan yahay niman dagaalka khibrad u lahayn dagaalku wuxuu u macaan yahay niman khibrad u lahayn taasoo Soomaalida iyaduna ay tiraa dadka khilaafaadka ka hadla oo raahooday ka mid tahay Soomaalidu halka waxay ka tiraahdaa nin waxa jooga aan garanayni wax soo socdana ma garto bay Soomaalidu ka tiraahdaa waxa jira oraha kale oo adduunka khilaafaadka cid aan xikmad ka oran ma jirto waxa adduunka khilaafaad ka socday ilaa intuu uuna waxa kamid dagaalka waxa falkiya ama abuura dad waaweyn waxayna khasab tahay inay ku dhintaan dhalinyaro dagaalka dad waaweyn baa falkiya iyo fidnada cidda ku dhibataana waa dhalinyaro ninkii balaayo falkinaya dhalinyaro soo urusha dhalinyaro waxa kale oo jira oraha kale oo oranaya dagaal isma taago inta uu jiro nin lacag ku helaya dagaalka laftiisa nin lacag ku helaya oo dagaalku dukaan u yahay dagaal isma taago inta cid lacag ku helaysa ay jirto waxa kale oo jira qof ama kooxi haday ku tusto xaqiiqda qofkaasi yahay lama baalasheeyo ama lama subko waxaad arkaysaa nin fidnoolo waa xikmad khilaaf oo jirta waxaad arkaysaa qof wuxuu soo wato ama fidnada uu wado ama dhibaatada taagan ee uu abuurayo ama xumaanta uu ururinayo qofka noocaasa lama subko lama baalasheeyo lama waji wanaagsan looma yeelo oo midabkiisi kalar aan ahayn looma yeelo Soomaalidu halka waxay tiraahdaa milil korkii lama dhayo milil korkii lama dhayo waxa kale oo jira war kale oo khilaafaadka adduunka ku saabsan oo iyaduna ay oranayso fulo oo dhan iyo sharwado oo dhani waxay ku hawlan yihiin daandaansi iyo colaad abuur markaanay u muuqan cid wax ku habboon ka go'aan qaadanaysa oo fulinaysa ninka fulaha waxa lagu yaqaanaa daandaansi iyo inuu mar walba baaro iyo inuu qoriyo bato iyo inuu urursi bato waa marka aanu arkayn marka qof ag taagan oo dhibaataynaya oo iska celinaya waxa kale oo jira oo orahaha khilaafaadka kamid ah maskax ay baqdani ka buuxdo
مريوته مسكح أي مقدري كبوحدو مريوته نيكا دقر قبها نيكا في النورها إيه نيكا دقر قبها وحي وجيستي أوك هذا يقول بلايو أبابله هذا يقول أيو أبابله أو فكر وناكسن يعرن ما عرن كرو ما نسمين كرو وحاجره هذا كوا أنت كدايو ضد أني كان شيء يبقى هاي أو ترير أو أمور جيسن مداهنين تبوخذ له إذا كتشوا ضد ترير كوا oo isagana marka lagu jamciyo xitaa culimada magaaladu ay dareen ka qabtay imika ama magaalada culimada magaalada ama barigeeda hadda garaato magaalada ka go'naato ama gudaheeda ha joogin dareen dadka oo jecel magaalada in la isku dhalaaliyo si ay doonayaan iyo cid ay doonayaanna ay gacanta ku dhigaan waxaa jira ninka madoobay aan idin sheegay wuxuu sheegtaa SSC wax SSC leeyahay uu yahay ma jirto wax SSC leeyahay oo dhulbaanta u madoobay harti u madoobay cid kale u madowday oo jira oo reer buu hood la u madoobay ma jiro waa loogiya waxa xaqiiqa oo la arki doonaa سجارة حار لارك الدنيا استقبالي إن بوه لنكا ما تقال نكا تفدى وأنا أنت كده حشره وبرشلة كده حشره ومو غرية وده كده حصله وتفدي لشيء كتير وكلا هذا أركتون نومانية أو أنا الأركين وهذا يجور قد كتيره واللي هذا هبين بجروب وسياحة شبهات المودي وواح كلا وكحن جبهده واح كلا وجبهده كحن ومرة مالك قد بدأيه وواح عرحي هذا بقى نكاسي وحوري بو هذا قبصنا يا بو هذا لو قبصنا كرا وحنا كو قبصنا يا مدلل الدقيق وحيرة وقت يرى هذا بينك ديري هي ضدنا وكل من يعلم تنيجي وأطرينا وأما وحوك ضد مش بقشينا يا ضد كفي النورها سندرينا أطورة ومغشينا يا هرتا مدوب بو خد له هذا قبصة السعودي كامل هتاجنا وطاسة وبنات هاي قبصة عندنا هو أطوري قبصو لما تكنا كدل لما تكنا كدل إن عاد قبصته إيا إن جيل دونه جيسد نيجلي دشا أي دشو اسكت ضي وقبصو وحاتره ونكاسيده هذا ودadka ku wareeriyay oo had iyo goor sheega fulo qoriyo badan Soomaaliland inuu weerarayo Soomaaliland buu hada dhexdeeda joogta Soomaaliland ciidamadeedu ma dhinac kasta oo buu hada 30 kilomitir bay uga jirtaa haday ugu badan tahay Ilaahay nin buu ka dhigay Soomaaliland meel kaama jirtee weerar cid kaama hortaagna هذا ويرر يسوع ويرر وقواسي وحكوا أوران لها أون مركز ويررته بوهاد لها وعررني واحد كنت إسكجت دفاع يسي كنت دفاع وما ضبوهاد لنا أوران ميسي كالا ياي طلع ياي وحنا ترو دجال جلين ميسي بوهاد الدجال وكسر دال مدول دجال كستو بوهاد لدعي طبعا كيسر دودو قدام بي عدي بلوضي وحي لغو بلابي عدة كو خسارودي
dadka ku dhintay dhibaatada ka gaadhay waxa dhacay waa la wada ogyahay cid aad maanta dagaal gelin kartaa oo intaad u yeedho oo tolo ayay tiraahdo oo intaad u yeedho oo eesiibaan ahay aad tiraahdo oo intaad u yeedho oo waxyaalo kale u sheegto aad ku jaawareerso ma jirtee keligaa uu kugu ahaanaya iyo kontonkaaga Somaliland bikeeri ka jabi cid kaama hortaagni markaana magaalada ha ku carar ama xadka haweenaaran ee joog meesha aad maalin bashan nin taagayso xirada ku sheegayso waa la ogyahay in niman kuya barhoy marka golweyn hadee bayda keeda leeyahay meelaha la xidhiidha sanguuni jamaame u dhashay inaad xira ku hayso waa la ogyahay reer buu hoodle qofka kula joogana waa la ogyahay adduunku waa information era meel kasta oo ka hadlayso wax kasta oo qabanayso Somaliland iyo adduunku waa ogyihiin Somaliland shacabka buu hoodle adiga ku dhaafsan mayso oo kugu dhaafsanaysa in nabadeeda jibiso Somaliland intay ku jirtaa waad garanaysaa bal intaad Somaliland bikeeri ka jibiso buu hoodle xageeda ugu dhaqaaq inaad ku nabad gasho Somaliland kaaga hadho ummadda Ilaahay iskaga leexo ummadda Ilaahay iskaga leexo waxaa tidhi salaadiin baa mandate ama awoodsiin isiisay inaan buu hoodle nabadiisa ciidan u ahay haddaad tiri sidaa suldaanka ama garaadka oranaya buu hoodle nabadeedu hayaa waa ciidan nabadeed oo buu hoodle jooga halka ka hadlo sheeg buu hoodle nabadeedu hayaa awood baan ka haystaa salaadiinta garaadada buu hoodle banaanka u soo saaro bal shay garaadka buu hoodle nabad ku yiri nabadda buu hoodla basuul ka tahay adigoo qaadicul dariiqa qaadicul dariiq dhuumanaya adigoo waxba marba jid saddex qof iyo afar qof taagin oo dad deegaanka u dhashay oo waliba dadka ugu caansana gaariga ka soo deg horan maalmo meel ha u guur ee sheek Somaliland haddaad irbad u geysato wallahi inay xataa kaaga hadho taana adiga ku taala sidaad ka yeeli lahayd waxaa jira dhacdooyin buu hoodla ka dhacay oo bulshada dhexdeeda oo iman doona iyagoo cad qabaa'ilka dhexdiisa ka dhacay oo ilaa 5 ka badan saddex mid ka mid ah war jiraba akaaro imanayay kugu cadaan inaad ninkii falkiyay tahay kugu cadaan wala arki doona waliba dhawaan baa la arki doona laascaano afartii sanadood u dambeysay dhibaatada ka socota ee dad badan salfatay ee ummado badan la raray ee loo raray koonfur inaad buddhigeeda tahay iyana muddo yar bay ku cadaanaysaa adduunkuna waa isu warhayaa xogmaalka iyo informationka iyo detectiveska iyo dadka wax baarana waa sanadaha la isdaba galaa laakiin imika waa gebagabaan u malaynayaa in lagu hordhigo oo ummadda Ilaahay la soo hordhigo wixii aad geysatay ama laascaana ha ahaato ama buuxood la ahaato iyo fidooyinka ilaa imika aad burco ku soo fidinayso waa wax cad waxaan ku odhan lahaa marba intaad humaag soo qaadato
وهماج كل جسان وراق وتوجنية وهماج قف سور كيا وتوجنية توكتا مربى هماج صار هماج هذا توكتا هماج لما توكتا ميل بحولي توجا لما توجا تاجر كالله تجا رحمة كل هذا هماج توجنيني هذا الوادي سومال لما ويريا لو رجع لسنة إيه تكبوه هذا لورس كبر تكبوه هذا لي واحد بالدجال بدل بوكال دجال خابر مدول بوح حكم بلا ميولوجي مدول بو وانا الدجال يقعن غير بوه هذا واللوجي مدول بوح حكم دبي وحي كسبية وحي أبوري ولا قرنيا بلنا غير بوه هذا الدجال جلسوا ومدة أي كذا شيء وده شيء لا شيء سومال لا كده دجال جلسوا بل حياي ده غيري غير بوه هذا كقراعه waxaad maraysaa in imika aad tiraahdo ilaahay yaa Soomaaliland carrada ka kaxeeya Puntland carrada ka kaxeeya waxa loo yahay Puntland lafteeda ilaa Garowe ilaa Boosaaso mudarooyada ka geysatay yaa loo yahay waxa xaqiiqda la isu sheegay oo aan been aynaan isu falkinayn waxay yiraahdeen Ismaaciil Miraay soo wax badan u araaranaya يا وحوري جيران قول لي يا أبو ريو قوم بارش وقتك هذا قربرون للي كيسن من نسارة قد كذي يقعون دا كلولا وجيران دير وحكم ذا قول لي يا أبو ريو خد من كي قدو بيسن يا دبع القول سنة دقر قبل من كل ده وانين قوني وتاجن oo dhuumanaya oo aan la arkayn oo musiibooyin badan soo geystay oo falkiyay oo in la ogaado aan jeclayn dhibaatooyin badan oo boqod la ka dhacay ninkaas isaga gacan ku lahaa gacan weyn waxa la saanood ka socdana warkeeduba waa soo baxaya waxaan sheegayaa midaan loogeen anu hadda ka hadli maayo 30 casho gudahood ama 2 bilood gudahood laba arrin oo ninkaasi buuhood la ka falkiyay umada degan haday og tahay waxaan u maleynayaa in qoryaha la isku dareer lahaa taasina bil gudaheed bay ku soo baxaysaa anu imika ka hadli maayo dadka buuhood le iyo waxaan oranayaa war oranaya buuhood le anu waa meeshaan u dhashay waa meeshii constituency-geedii aan ahaa waxa dadka u kala saaraa ma jirto إلى راسك وياي راسك وياي دتك ولا شيء أي دبيرسين وانا بدون ودوك اللي بدبي الدنيا مركان سكر قاعد ده أي دبيرسين نبت بالدنيا